Sida lagu yareyn karo dufanka dhiigga. Dhammaanteen waxa aan rabnaa in wadnaheenu uu noqdo mid caafimaad qaba, taasi oo qayb ahaan ku xiran in dufanka dhiigga ku jira ee loo yaqaan kolestaroolka uu noqdo mid xadaysan oo aanan ka badnayn inta loogu talagalay. Dufanka dhiigga ku jira waxaa loo qaybiyaa laba qayb. Qayb waxaa loo yaqaanaa dufanka xun amaba bad cholesterol oo sidoo kaleeto loo yaqaano low density lipoprotein loona soo gaabiyo LDL, oo qayb weyn ka qaata in ay samaysmaan kuuskuusyo u badan baruur oo xira qulqulka dhiigga, taasi oo khatar ku ah xubnaha jirka oo ay ugu horeeyaan wadnaha, maskaxda, kilyaha iyo lugaha. Waxaa sidoo kaleeto qaabkan ay ku xirmayaan xididada qayb ka ah nooc kale oo baruur ah oo loo yaqaano triglycerides. Dhanka kalena waxaa jira baruurta loo yaqaano ama dufanka loo yaqaano good cholesterol amaba dufanka wanaagsan oo loo yaqaano high density lipoprotein loona soo gaabiyo HDL, kaasi oo ka hortaga in ay samaysmaan buruqyadaasi xiraya xididada dhiigga, khatartana gelinaya wadnaha iyo maskaxda. Si haddaba aad u yareyso khatarta aad ugu jirto wadne xanuunka iyo in xididada maskaxda ay xirmaan, waxa aad ku qasban tahay in aad yareyso xaddiga dufanka aad qaadanayso ee kolestaroolka loo yaqaano, kaasi oo kasoo geli kara cunooyinka aan qaadana jirkaagana uu samayn karo. Siba haddaba aad isaga yareyso khatartaasi, waa inaad samaysaa tallaabooyinka soo socda. Waa midda koowaad, waa inaad yareysaa baruurta iyo subagga hilibka xoolaha laga hela iyo guud ahaanba hilibka gaduudan sida hilibka ariga, geela iyo lo'da. Waana taa beddelkeed inaad qaadataa hilibka cad sida malayga iyo digaaga. Waa marka labaad waa inaad la saaxiibtaa cuntada qolofta iyo xargaha leh, waxa loo yaqaano diet fiber-ka, si gooni ahna midda loo yaqaano soluble fiberska oo ah midda milanta, taasi oo ku dhagayda dufanka ku jira caloosha isla mar ahaantaana bannaanka u saaraysa. Cuntooyinka ugu muhiimsan ee laga heli karana waa khudaarta noocyadeeda kala duwan, fruits and vegetables, digirta noocyadeeda kala duwan iyo qamadiga. Waa midda saddexaad, waa inaad iska dhintaa cayilka. Haddii aad tahay qof cayilan, waa inaad cayilka dhintaa oo aad iska yareysaa hilibka ku saaran, waayo oo haddii cayilka aad iska dhintaa waxa hoos u dhacayo xaddiga dufanka dhiigga ku jiro, waana ku muhiim. Si taas ay u suura gashaana waa in saxankaaga cuntada aad u qaybidaa laba qaybood amaba laba meelood. Meel ka midana waa inay noqotaa khudaar, halka meesha soo hartayna aad usii qaybisaa laba meel. Meelna ay noqotaa hilib oo u taagan borotiinka, meelna ay noqotaa digir, bariis amaba qamadi, wixii aad heli karto oo u taagan carbohydrate. Ugu dambeynna waa inaad samaysaa jimicsi joogto ah ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo. Sababtuna waxa ay tahay jimicsiga joogto ah waxa uu hoos u dhigaa heerka dufanka dhiigga ku jiro. Intaas ayaan kusoo koobaynaa. Mahadsanidin.